بسم الله الرحمن الرحيم sida alla wada socotaan sanadkii hore ee 2020 bishii 7 waxaa soo bilaabmay doodii ku saabsanayd arrimaha doorashada qaranka ee 2020 sida alla wada socotaan sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa ay dadaal dheer ugu jirtay sidii dalkani uu aadi lahaa hal qof iyo hal qod iyo doorashada xisbiyada badan laakiin nasiib darro qaar ka mid ah maamul goboleedyadu waxa ay ku dhageen oo ay joojiyeen hanaankii matalaadda shacabka ee hal qof iyo hal qod iyo curashadii koowaad ee xisbiyada badan oo ay rajadiisu markaa muuqatay waxaana dowladda lagu riixay in ay ka leexato jidkii qumanaa una janjeersato hanaanka doorashada dadban iyo matalaadda kooban xilligaas waxa isu diiwaan geliyay hanaanka xisbiyada badan iyo ka qaybgalka doorasho dadweyne oo hal qof iyo hal qod ah in ka badan 100 xisbi guddiga doorashooyinka madaxa bannaanina waxay shaqada u wadeen si xilkasnimo ah oo ay ka muuqato howlkarnimo laakiin nasiib darro maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxa ay diideen hanaanka xisbiyada badan iyo qabsoomidda doorasho hal qof iyo hal cod waxaanay ku adkaysteen in lagu laabto habraacyadii doorashada dadban ee 2016 nin faras dabadii ka degay meel uga toolman buu waayey markii dowladdu ku waafaqday si dalku uu doorasho uga dhacdo heshiiskii 17 Sebtembar si dalka doorasho wada golahay uga dhacdo waxayna sidoo kale maamul goboleedyadu dadaal badan ku bixiyeen in qaybaha kala duwan ee maamul goboleedyada kale iyo baarlamaanadu ay aanay waxba ka bedelan heshiiskaas ay ansixiyaan mar haddii la heshiiyo waa in loo hoggaansamay dowladdu waxa ay ku khasbanaatay in la dardargeliyo fulinta heshiiskaas waxaana xukuumadda loo soo gudbiyey guddiyadii doorashada ee saddexda maamul goboleed ee Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed sidoo kale xubnihii gobolka Banaadir ka imanayay ee 5 xubnood ahaa guddidii maamul lahayd ayaa la soo gudbiyey sidoo kale guddiyadii doorashooyinka Soomaaliland ayaa xukuumadda soo saartay sidii ku qorayd heshiiska 17 Sebtembar laakiin nasiib darro mar kale Puntland iyo Jubbaland waxay diideen inay soo magacaabaan guddiyadii doorashada sidii lagu heshiiyeyna waa ka baxeen mar kale si loo dardargeliyo fulinta heshiiskii 17 Sebtembar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu isugu yeeray kulamo badan oo isdaba jooga laakiin madaxda Jubbaland iyo Puntland waa ka baaqsadeen kulamada marka laga reebo kii Samareeb oo ay la yimaadeen shuruudo cusub ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu booqday inta badan maamul goboleedyada dalka si doorashadu u bilaabanto laakiin nasiib darro mar kale Puntland iyo Jubbaland way diideen in doorashadu bilaabanto waxaanu kala soo noqday gacmo maran haddaba markii la sugayay labada maamul goboleed muddo 6 bilood oo intaas oo dhanna lagu qancinayay fulinta heshiiskii ay saxeexeen ee 17 Sebtembar markii la isugu tagay magaalooyinka Garowe Samareeb Baydhabo iyo Muqdisho si isfahan looga gaaro qabsoomidda doorashada markii ay maamuladaasi dureen ciidamada qalabka sida ee habeen iyo maalin difaaca ugu jira dalkooda sababta ay u dureena ay keeni karto in dalka ay ka dhacdo marka la duro ciidamada qalabka sida sharci darro iyo amni darro markii maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay jid iyo jihadiid noqdeen si loo fuliyo heshiiskii ay iyagu soo qorteen ee loo ansixiyey dalkuna uu doorasho waado markii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu in ka badan 5 jeer gogol u dhigay maamul goboleedyada doorashada diidka ah taas oo uu kula baxay magaca tanaasul badane markii wax kasta oo ay codsadeen loogu ogolaaday isfahamkii Baydhabo ee 15 ilaa 16 Febraayo si doorasho u dhacdo laakiin mar kale ay Puntland iyo Jubbaland diideen fulinta isafgaradkii ay ku soo saxeexeen Baydhabo markii ergo madaxweynuhu u diray madaxda Jubbaland iyo Puntland kana koobnayd madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle ay kala soo laabteen mar kale gacmo maran iyo natiijo la'aan markii ilaa sabtidii
saddexdii abril la wada fadhiyey xerada afisyooni si loo dardargeliyo fulinta heshiisyadii 17 Sebtembar iyo 16 Febraayo ee Baydhabo oo ay ka soo qayb galeen waa markii koowaade madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ay keeneen caqabado cusub oo ay kow ka tahay inay duraan baarlamaanka oo sharciyada dalka ugu sareysa oo yiraahdaan waqtigiisa waa dhamaaday iyadoo aynu ognahay low number 30 ama xeerka soddanaad uu si cad u sheegayo hay'adaha dastuuriga ahi shaqada way sii wadayaan ilaa ay bedelaan hay'adaha dastuuriga oo kale inta la soo dooranayo hay'adaha cusub iyadoo waxa soo dhimi jiraan ay baarlamaankii dureen oo ay yiraahdeen awood uma laha xeerar cusub ee meesha laga saaro madaxweynuhu awoodda ha wareejiyo xukuumaddu iyo shaqo qabanin ciidamada hogaamadooda hal kala diro inagoo og dagaalka ay ku jiraan ciidamada habeen iyo maalin shuruudaha cusub waxay kaloo keeneen in ajnabigu ay shirarkeena ka soo qayb galaan oo ay talada wax ku yeeshaan waxa ay kaloo sheegeen in siyaasiyiinta madaxa bannaani ay shirka yimaadaan oo ay iyaguna go'aamada gaaraan iyagoo aan siyaasiyiinta madaxa bannaani haysan mandate sharciyeed oo ay shirarka ku iman karaan waxa ay soo jeediyeen in taliyayaasha ciidamada shaqada laga eriyo iyadoo xaaladdan lagu jiro waxaas oo dhan oo loo arkay caqabado cusub iyadoo ay ogtihiin in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray qaraar 4 arrimood ka hadlaya in madax bannaanida Soomaaliya aan la faragelin inaan wax shuruudo lagu xidhin doorashada in la dardargeliyo heshiisyadii 17 Sebtembar iyo 16 Febraayo taasi markay dhacday markii uu noqday hal bacaad lagu lisay dhammaan dadaaladii ay sameeyeen dhinacyadii isxilqaamay kala ahaa madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynayaasha maamul goboleedyada horsocodka odayaal waxgarada culimada Soomaaliyeed haweenka daneeya siyaasadda iyo dib u heshiisiinta ganacsatada iyo saaxiibadeena beesha caalamka si ay madaxda Jubbaland iyo Puntland ugu soo qanciyaan in ay ogolaadaan in dalku doorasho aado waxa soo dhani markii natiijo la'aan ay ka soo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u cadeynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho oo asaaskeedu yahay 17 Sebtembar iyo isfahamkii 16 Febraayo waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn intaasaan u cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto una sheegaynaa dawladdu inay mar walba diyaar u ahayd intaas soo gogolood intaas soo goobood iyo intaas soo shirna isugu timi si loo dardargeliyo doorashadii laakiin ay ka socon weyday labada hogaamiye ee Puntland iyo Jubbaland saasaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynaynaa aad iyo aadna waa mahadsantiin Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier